si hoos loogu dhaadhiciyo barnaamijka tababartayaasha ee shaqaalaha dawladda la siinayo oo lagu xoojinayo adeeg bixinta bulshada loo hayo ayaa waaxda unugyada shaqada dadweynaha ee shabakada badbaadada wax soo saarka ee BSMB oo ka duuleysa hirgelinta barnaamijkan waxay tababar muddo 6 cisho soconaya u qabatay shaqaalaha unugyada xooga shacabka ee heer deegaan iyo qaar ka mid ah shaqaalaha waaxda kheyraadka dabiiciga ee ka howlgala qaar ka mid ah degmooyinka mashruuca BSMB ka jiro tababarkan oo ahmiyad ballaaran u leh awoodda fulineed ee shaqaalaha mashruuca BSMB ayaa waxaa furitaankiisii ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka xafiiska beeraha iyo kheyraadka dabiiciga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Axmed Shukri oo xubnahan ku booriyay inay tababarka si fiican u qaataan si ay u gaarsiiyaan shaqaalaha ku sugan 46 degmo ee uu ka howlgalo mashruuca BSMB ujeedada ugu muhiimsan ay tahay sidii maxaan ku ahay degmooyinka uu barnaamijku ka howlgalo gaar ahaan qaybtan public work xooga shacabka maxaan ku ahay lagu qabanayo si taageero maxaan ku ahay u siin lahaayeen xirfadlayaasha sectorka taasoo loo baahan yahay hawlaha maxaan ku ahay public work lagu qabanayo sida adeegyada arrimaha bulshada waxbarashada haday noqoto xarumaha caafimaadka xarumaha biyaha jidadka miyiga maxaan ku ahay laga sameeyo ilaalinta carrada iyo maxaan ku ahay biyaha ilaalinta dhul daaqsimeedka maxaan ku ahay degmooyinka uu barnaamijkan ka howlgalo ka xukuumad ahaan iyo ka xafiis ahaanna hawshan xooga saarayno wixii hadda ka dambeeya 1.2 milyan kaas ka faa'iideystayaashay sidii maxaan ku ahay shaqadii loogu talagalay ay uga qaban lahaayeen taasoo wax weyn ka taraysa guud ahaan maxaan ku ahay deegaanka ilaalinta deegaanka iyo horumarinta kheyraadka dabiiciga aan leenahay si wax soo saarka maxaan ku ahay dhinaca beeraha kor loogu qaado shabakada badbaadada wax soo saarka BSMB waaxda unugyada shaqada dadweynaha waxay siiyaan degmooyinka ay ka howlgalaan taageero joogto ah oo ku aadan dhinaca shaqooyinka lagu qabto xooga shacabka iyadoo la siinayo tababaro iyo taageero kala duwan oo ku qotoma howlaha mashruuca sida ilaalinta dhul daaqsimeedka ilaalinta carrada iyo biyaha horumarinta kaymaha iyo aasaasidda xarumo lagu xanaanayo dhirta waxa kale oo mashruucu ka shaqeeya dhismayaasha kaabayaasha bulshada sida iskoolada rugaha caafimaadka dadka iyo xoolaha xarumo lagu tababaro beeraleyda iyo dhisidda ceelasha biyaha wuxuuna tababarkan inta uu socda ay ku qaadanayaan xubnahani casharo ku qatama shaqooyinka uu mashruucu bulshada u hayo kadibna tababartayaashu waxay aqoonta u dhaadhicin doonaan markay dhammeeyaan tababarka dhammaan degmooyinka uu ka howlgalo barnaamijkan BSMB si kor loogu qaado awoodda dhinaca aqooneed ee la xidhiidha shaqooyinka lagu qabto xooga shacabka